waxaynu halkaa ka arkaynaa aayadda hore iyo tanba in uu jimaaca ama mucaamalada ama labada qof xaaskiihi wada dhaqankay samaynayaan uu leeyahay aadaabtaas waxaa ka mid ah inay meesha taallo waxa la yidhaahda ikhlaasu niya niyad wanaagsan oo qofkii uu diin ahaan shaygan u niyoonaya aada ajri ka heshid ilaa nebi maxamed markuu ka warramaya waxyaabaha ajriga iyo abaalmarinta laga helo wa fii budci axadikum sadaqa midkiin markuu xataa xaaskiisa u galmoonayo isagoo hamadiisa gudanaya ajri buu leeyahy waa taa ilaahay uu ku tilmaamayo waqadimuu lianfusikum aadaabta waxaa ka mida dikrigii inuu akhriyo uu nebigu inoo jideeye calayhi الsalaaةu wasalaam bismi اllaah allahuma janibna wajanib الshayطaana maa rasaqtana ducadaa dadka akhriya caruurtooda shaydaanku waxba ma yeelaya buu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam laakiin dadka ducadaa ilaawo waxaa laga garan karaa halkaa inuu caruurta shaydaanku duri karo ama derderderanoo xayraana ay noqon karaan intaba waxaa laga fahmayaa waqadimuu lianfusikum aadaabta waxaa ka mid a inuu qofku iska ilaaliyo xaaraanta oo waktigaa ay caadada leedahayna aanu ruuxa dumarka ah la kulmin meeshaa qashinku ka soo baxaya dabadana aanu uga tegin labada arrimoodba xaaraana xadiid saxiixa nebigu wuxuu ku yihi calayhi الsalaaةu wasalaam waa nacdalan yahay qofka xaaskiisa uga tegaya halkaa qashinku uu ka soo baxo iyo dabada aayaddana ilaahay waxa uu faray dee meeshii xaydka in looga tegayo halkii ilaahay uu idin faray markay daahir noqdaan waa xubinkii waktiga ay xaydka leedahay iyo duburta labadaasa xaraama wixii kale waa xalaal aadaabta waxaa ka mid a haddii qofku ay u saamaxayso duruuftu inuu maydho ama weysaysto mucaamaladaa kadib waxyaabaha aadaabta waxaa ka mida labadan qof arrimahan u dhaxeeya xasaasiga ah inaanay cid kale uga sii sheekaynin ehel asxaab cid kale toona arrinkoo adkaada oo qaadi ay tagto mooyaane qaadiga hadday tagto dee kalifto waa xaalad gaara nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay ninka iyo gabadha ama ruuxa dumarka intay galmo sameeyaan dadka uga sheekeeya waa shaydaan iyo shaydaanad buuri shaarica iska helan maxaa soo hadhayba waa ceeb weyn waa edab daro dadka aan akhlaaqda lahayn waa qofkaasi gobonnimo ma leh damiir wanaagsanna ma leh xaaladaha sariirta hadduu dadka uga sheekeeyo waxyaabaha keenana way reeruhu inay ku burburaan tandiimu nasligu inuu bannaan yahay baa la tilmaamaa ama tarankii la kala fogeyn karo haddaanay tacqiim ahayn oo dhasha aan la joojinayn wadooyinkaa xalaasha ah baa lagu kala fogeyn karaa oo iyaguna kolley waktigooda u baahan in la sharxo waxaa waajiba labada qof maadaama mucaamaladan ay dhammaysteen salaada subax inay u maydhaan oo aanay ka tegin siduu nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada xaaraamta waxaa ka mid a ruuxa dumar markay soom farala soomantay ama xaj xidhan tahay ama cimro xidhan tahay xaaladaha galmadu waa xaraam labadaa qof cawro ma kalale iyagu huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna xadiid daciifa weeye oon la cuskan karin aharka sheegaya caaisha ay leedahay anigiiyo nebigu maanaan kala arag kaasi ma sugna laakiin waxaa sugan inay weelkan wada maydhan jireen cawradaada cid walba ka qari ilaa xaaskaaga mooyaane baa xadiid saxiixa ah oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam dhar baabay isu yihiin waanay jinaasadoodana way ismaydhi karaan aadaabta waxaa ka mid a labada qof si mucaamaladooda iyo kalgacalkooda u wanaagsanaado nadaafadda inay ilaaliyaan in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin dharkooda iyo afkooda iyo jidhkooda waa laba qofoo carfayo udgoon wey ibnu cabaas wuxuu odhan jiray anigu xaaskayga waan isu qurxinayaa sida aan u jecelay inay iyaduba isugu kay hagaajiso ayaan jecelahay laakiin haddaad jaadkii iyo sigaarkii cunaysa iyo wax kaloo ka sii daran kolley xunbaa kaasoo kankami oo markaad dharka kartabaanka dharka sudho kolley halkaa sigaarkii uu ka soo kankamaya intaan adigaba jidhkaaga la gaadhin qofka muslimkii waa qof udgoon wey arrimahaasoo dhan iyo qaar kaloo ka sii badan aqaafada noocani waa aqoon bay u baahantay
dadka waliba xaasileydii si ay xurmada iyo karaamada quraanku nafaraya u ilaaliyaan inay aad u bartaan waajib weyn inaasaynu ka tilmaami karnaa aadaabta wada dhaqanka noocan ee xaasileyda